مدر أحمد شروع وحوها عالم برتي دين إسلام كا جناعسده هجامية سياسات إيان قابية بلشدي كنو ليد هرجيسا sida ay tilmaamayaan xogaha taariikheed ee la ururiyay oo qaybo kamid ah lagu kaydiyay barta la yiraahdo Wikipedia. Madar ayaa waxa uu ka dhashay qoys hodan ku ahaa ganacsiga oo ku noolaa magaalada Berbera. Waxa aabihii uu diray magaalada Harar ee dalka Itoobiya si uu barto diinta Islaamka. Waqtigaasina Harar waxay ahayd meel barashada diinta looga yimaado geeska Afrika oo dhan. Magaaladaasina waxay xiriir ganacsi la lahayd Berbera oo alaabta ka soo degta lagu gaarsiin jiray awr. Waxa la sheegay in nin loo odhan jiray Sheekh Kabiir Khaliil oo ka mid ahaa saddexdan nin ee ugu aqoonta badnaa diinta Islaamka ee deganaa magaalada Harar uu kula taliyay Sheekh Madar in marka uu dhammaysto waxbarashadiisa inuu dego magaalada Hargeysa oo uu ka aasaaso dariiqada qaadiriyada. qarnigii 19aad Hargeysa waxay ahayd meel qabaa'ilku ay ku dagaalamaan oo halisna ay ku ahaayeen safarada u kala socday magaalooyinka Berbera iyo Harar. kadibna sheekha ayaa waxa uu sameeyay jameeco weyn oo ahayd xarunta xirta qaadiriyada oo fariiqa islaamiga oo aasaasay wadaadkii reer Ciraaq ee loo odhan jiray Sheekh Cabdiqaadir Jaylaani. maadaama uu degay Hargeysa waxay noqotay magaalada ugu weyn Somaliland ahna talabaad ee ugu weyn dhulka Soomaalidu ay ku nooshahay ee geeska Afrika. waxa muhiim noqday in la helo biyo la cabo iyadoo magaaladu ay lahayd carasan oo wax laga beeri karo. waxa uu sameeyay masaajid uu dadka salaada ku tujiyo iyadoo waqtiyo kamid ah uu oogay salaado roob doon ahaa. Sheekh Madar waxa xiriir ay yeesheen Suldaan Diiriye Suldaan Xasan oo ahaa suldaankii guud ee Hargeysa ahaana nin hogaamiye dhaqameed oo aad u awood badnaa. sanadkii 1870 waxaana labadan nin ay ka wada hadleen in dhirta la jaro la magaaleeyo Hargeysa waxna laga beero. waxaana markaasi meesha ka baxay colaadii u dhaxaysay beelaha iyadoo magaaladu ay noqotay meel ay ku kulmaan xoolo dhaqatada iyo ganacsatadu iyo safarada u kala socda magaalooyinka Berbera iyo Harar. waxaana lagu heshiiyay ku dhaqanka shareecada Islaamka. Berbero xirta qaadiriyadu ay awood ku lahayd ayaa waxa ka bilaabmay loolan kaga yimid dariiqada saalixiyada oo uu keenay Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. waxaana dooday dhex martay culimo ay ka mid ahaayeen Awgaas Xaaji Ibraahim Xirsi iyo hogaamiyihii qaadiriyada Sheekh Madar Axmed oo isna dooda lagu casuumay sanadku marka uu ahaa 1897. waxaana dooda sida la sheegay ku guuleystay dariiqada qaadiriyada. Sayid Maxamed waxa uu isaga tegay Berbera isagoo sameeyay dhaqdhaqaaqiisii daraawiish. ingiriiska waxa waqtigaasi soo food saartay cabsi uu ka qabay in sayidku caqabad ku noqon doono danihiisa. waxaana fadhi u yeeshay baarlamaanku sanadkii 1901 lagu go'aamiyay in Sheekh Madar uu hogaamiyo abaabul bulsho ka dhana sayidka. kadibna sheekha ayaa waxa uu wargeliyay hogaamiyaashii dhaqanka si looga difaaco magaalada Hargeysa oo la sheegay in sayidku weerar ku ahaa waqtigaasi oo uu degay Oodweyne. laakiin xaaladda ayaa isbedeshay kadib markii sayidku uu colaystay qabaa'ilkii martigeliyay ee reer Oodweyne isagoo ka dhex arkay inay xiriir dhow la lahaayeen ingiriiska oo ciidamadiisa ay hoggaan u haayeen si weyn ay ugu dhex milmeen. waxaana sayidka oo uu guuray dhanka bari uu dhacay geel tiro badan. kadibna waxa bilaabmay dagaalo u dhaxeeyay beeshaasi iyo sayidka. Sheekh Madar Axmed allaha u raxmaday waxa uu geeriyooday sanadkii 1918. waxa raadkiisii raacay wiilkiisii Sheekh Yuusuf oo noqday caalim si weyn loo tixgeliyo. ilaa haddana Sheekh Madar waxa loo aqoonsan yahay Sheekhul Beledkii Hargeysa. abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay ka mid tahay maalgelin u dhaxaysa $500 ilaa $20,000 Mareykanka. moobilo iyo lacaga cash si aad uga mid noqoto guuleystayaasha ku shubo $0 ama $0.5 oo kaliya ama ka badan isla markaana ha furnaado teleefankaagu muddada 90 cisho ee abaalmarintu socoto adigoo isticmaalaya adeegga e-dahab. shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel